inta wadayaal aad baad mahadsantihiin idilkiinba meel walba aad naga daawanaysaan halkan waa Home Cable TV maanta waxaan soo booqanay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota gaar ahaan guriga uu degan yahay Dalmar yare Dalmar horta aad baad mahadsan tahay in aan marti kugu ahay gurigaaga xilli lagu jiro sabti ahad oo maalmihi fasaxaaga ah oo halkan adiga iyo akhyaar badan aad ballaarsateen baashaal badan balse waxaan jecelahay xaalada jira oo maalmahan dambe soo baxay daraadood in aan su'aalo yar oo dhowr aan kaaga wareysto su'aasha ugu horeysan dad badan ku weydiinaya waxa weeyaan waxaad soo saartay hees inta badan dadku ay ugu talagaleen ama ay u micnaysteenba inay jawaab u tahay hees ka horeysay oo maalmo yaroon ka hor soo baxday oo kooxdii waayaha cusub ee kamid ahayd ay ku luuqeynayeen heestaas oo loo fasirtay inay ahayd mid siyaasadaysan ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa horta adigu haatan kamid miyaa tahay kooxdii aan kugu naqaanay fankaaga aad ka bilowday waayaha cusub ugu horreyn horta walaalka Irshaad soo dhawow guriga ku soo dhaw aad baan idinku soo dhaweynaya adiga teamkaagaba anigana waan ku dhawahay Home Cable haddaan su'aashaada jawaabteeda u galo horta dadku waxyaabaha isla dhexmareen horta waxa ka horeysa marunba mise waa been inaan u jawaabay kooxda waayaha cusub ama heesteeda hees ku horeysa inaan u jawaabay arrintaas waxba kama jiraan anigu uma jawaabin kooxda waayaha cusub iyo heestii ay soo saareen laakiin waxaan soo saaray heesaan anigu kaga hadlaya dareenkayga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxa isku soo aadaa laga yaabaa waqtiyada ay labada hees soo baxeen laakiin heesteedu hees wax jawaaba ma ahan haddii kale haddaan usoo galo arrinta oo inaan ka baxay waayaha cusub iyo in kale waayaha cusub waa koox aan wada shaqaynaynay in ka badan 15 sano waqti badan oo aad wanaagsan aan soo qaadanay wanaag badan iyo walaaltinimo badan dhex martay bulshada Soomaaliyeed waqti waliba aad iyo aad xaaladooda u adag tahay aanu la qaybsanay dhibaatooyinkii jiray maxaan ku leedahay ka bixitaanka waayaha cusub ma ahan easy aan dhihi karo waan ka baxay waayaha cusub laakiin xaaladan lagu jiro iyo mowqifka ay qaateen qayb ka mid ah waayaha cusub oo ay maxaan ku inay ku dhaleecayaan ama ay ku aflagaadoodaan dawladda Soomaaliya anu mowqifka lama qabin markaan u arkay bulshada Soomaaliyeed sida reactionka ay ka bixiyeen iyo iyaga go'aanka ay qaateen iyagoon qofna kala tashanin waxaan go'aansaday anigu inaan banaanka ka joogo kaligeena ma ahan inta badan kooxda waayaha cusub waa arrin aanu ka simanahay weeyaan on isku wada raacnay okay waayahay dabcan waxaad kamid ahayd shakhsiyaad fara badan oo ka bixiyay falanqeeyay heestaasi oo waxaan arkaynaa in barta aad ku leedahay baraha bulshada aad ku soo qortay in heestaasi aanad ku faraxsanayn isla markaana aan mid qurux badan kula muuqan intaan ka warqabnaa haatan waxaad sheegtay Dalmaro in heestii aad soo qaaday aanay jawaab u ahayn haddana haddii loo fiirsado inta badan waxay tagaysaa in ay ku socoto barnaamijkaasi ama heesta ay soo saareen kooxda waaye markaan intaas oo dhan isku soo duubnaan ka imaado su'aashan qaba waxay tahay adiga ahaan heesta ay soo qaadeen maadaama ay fanaaniintu inta badan ay xataa berigii dawladii hore Soomaaliya Saada Cali Allah yarxama ilaa naxariistay kamid ahay dadkii daliili jiray ama waxyaaba dawladda daliili jiray adiga markaa heesta ay qaadeen dareen ahaan see kula muuqata adigoo bulshada la wadaagaya aniga dareen ahaan waxay la muuqataa fanka Soomaaliyeed waxa la mari jiray si maldahan ayaa la isu dhalaacin jiray dawladda looga hadli jiray iyadoo waliba la fiirinayo la tixraacayo dareenka shacabku haddii ay dawladda boqolkiiba 80 ka soo horjeedaan dawladuna ay dhaliilo badan ay sameynayso waa xaq inaad ka hadasho adigu waliba still tixraacaya fanka Soomaaliyeed wadadii loo mari jiray adigoo maraya laakiin ma qabo wadankii oo maanta hadeertaan ummadda Soomaaliyeed waxa ka farabadatay qarax baa inta ka dhacay qof baa dhintay hebel baa la dilay meel baa la qarxiyay qabiil hebel weerar ku qaaday dadkii iyagoo intaas oo dhibaato maanta ku dhex jira haddii haddana loogu sii daro intii yareeda rajada ahayd u soo muuqatay in maxaan ku raadayay nin fanaan ah oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo maamuus ku leh oo la jecel yahay inta u soo labisto in uu aflagaada cad oo bareero anigu fikrad ahaan way ila foolxuntahay waxaan u danaynayaa ma ahan dawladda Soomaaliyeed waa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankii oo aan haysanin hub kaleeto hubka kaliya ee haystaan rajada kaliya ee haystaan ay tahay qofka madaxda ah wuxuu u bedeli karay iyo wuxuu bedelo haddii wixii la bedelay oo dhan xaarinta laga dhigo la iftiimiyo loo hanqal taago doorashada berri dhici doonto oo waqti uu ka dhiman yahay
anu waxaan u arkaa khalad baan u arkaa waxaan wanaag u arkaa in bulshada loo tuso waxa wanaaga ah iyadoo oo dhaliisho aysan meesha ka marnayn intaasaan qabo okay way markii laga yimaado qoraalka aad soo qortay aanu aragnay ma jiraan wax xiriira oo aad la yeelatay ama aad la samaysay oo arrintan ku saabsan hadday tahay inaad kala hadashid ama aad su'aal ka weydiisid xiriir ma la samaysay gudoomiyaha kooxda kale oo Shiine walaalkay Shiine horta walaalkay waaye waa inaan aad isugu dharnahay waqti badan soo wada marnay dib iyo dhaaf baan soo wada qaybsanay ma aanan wada hadlinani isagu si shakhsi ah laakiin kooxda shalatoole ilaa daraad ilaa iyo weegii hore intaysan hees soo bixinba shirar waan wada yeelanay baa jirta kooxda walow isaga la ii sheegay in inta la invite gareeyay uu go'aansaday inuusan imaanin walow la ii sheegay in kooxda qayb ka mid ah iyo waliba dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka mid intay la hadleen inay u naseexayaan ka noqo yiraahdaan aan horta markii hore kuma baraarugsaneyn waxaan inuu Shiine sameyn karo ama uu sameyn doono because wuxuu ahaa qof raaca sharciga waayaha cusub most of the time maxaan ku raadayay marka aan arkay anigu shakhsi ahaan lama hadal laakiin kooxda shir baanu yeelanay waxaanu go'aansanay maadaama uu digniintii kooxda uu qaadan waayay inaanu anagu magaci Soomaali magaci fanka oo waa fanaaniinta waayaha cusub oo dagaalkaad aragtay aan u soo marnay haddii halkaas uu marayo maanta bulshadii Soomaaliyeed inay boqolaal kun oo qof ay maxaan ku raadayay haddii hataa la yiraahdo dislike waa la gatay commentiga oo 40 kun 50 kun kor u dhaafaya oo bulshadii annaga nacaynayso oo fanaaniintii kooxda ay caynayso oo magaci waayaha cusub ay caynayso oo bulshadu ay ka falcelinayso maxaan ugu jawaabnaa su'aashaas ilaa hadda qof iga jawaab ma jiro macnaha haddii la yiriba dislike waa la gatay waa technology waa la sameyn karaa waa macquul waa iska wada waa la sameeyay laakiin haddaan ku raacataas dadkan ku caynaya ee ka hadlaya waliba ka bariyay please waabad sameysane magaciisniina waabad aanu jeclay waadna nacsiisane hadda uun bal heesta ka saara meesha dadka kule maxaan ugu jawaabnaa oo 50,000 kun kor u dhaafay waayay وصح إن مادام كوح وياها عصوبة تاي أو السجن وشينا وياها قدوميها كوحدة مياني تشيرين حبناك كلا كلا ضمن كوحدة ويا أو ميان لسقبن كرين أو مسك كوحدة وحويا السجن بهاتنا كوحدة إجعانتي سكوتش تامية والله إن كوحدة مدهر توي كلا بعسريد أنا وحال كان وحن شو مدة لا لحية 8 سنة wada shaqeyn ugu horeysay oo physical aan wada yeelano 2 sano ka hor baa isu keenay halkan igu yimideen channel su'aalena waqti fiican wada qaadano si fiican halkan ugu soo dhaweeyay si fiican aan babixiyay kala baasanaantaas la ajligeed sharci weeladaha kooxdu la maro laakiin sharciga la marayay waxa u muuqata in aysan qofna hadda uusan u hoggaansameyn qof walba uu rabo inuu independent noqdo oo maxaan ku raadayay uu tiisa wato which anu aan isdheela way fududahay oo macnaheedu haddii qofka bini'aadamka wixii wadadii sharatool anagoo gaajaysan aanu isla soo marnay maanta markii qurbo la yimid haddii la wada mari waayo waxa fiican in tartiib nin walba tiisa u wato waayahay haddaan u soo noqono dhankii heestii aad soo saartay saad ka dhawaajisay heestaasi jawaab uma ahayn baa tiri heestii ay soo saareen kooxdu bal inaad sharaxaad naga siisay ayaan jeclaan lahaa heestaasi waxay tahay waxaad ugu talagashay iyo sidoo kaleba ciddii ku samaysay heestu waxay ka hadlaysaa sida ay ku bilaabanayso mar raba inaan midhaha halhal u kor istaago waad dhegeysan kartaa dadku way dhegeysan karaan wayna dhegeystaan runtii aad bay si wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh ayay uga falceliyeen heestu totally waxay ka hadlaysaa rajada maanta uu qaranka Soomaaliya uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed shakhsiyan ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay qabatay videoga ayaa lagu soo daray laakiin anagu shakhsiyan waxaanu leenahay raja soo iftiintay meel fiican buuna wadanka u socdaa maanta kan madaxda noo ah waanaanu aamino waanaanu adeecno waanaanu garab istaagno dhibka Soomaalida haysto waxay tahay madaxweyne marka la doorto 3 bilood ee herato adduunka meel kasta oo tagto xaflad baa ka jirta madaxweynaha lagu taageerayo 6 bilood ka bacdina dadkii xafladda qaban qaabinayba ka soo horjeesanaya dana shakhsiyadeed li ajligeed ma fiiriyaan danta guud qofku chance buu leeyahay 4 sano leeyahay 4tiisu markay dhamaato ayaa lagu xisaabtamaa wixii uu sameeyay laakiin dareenka bulshada Soomaaliyeed waxa ay qabtaa inay dawladdan wax fiican qabatay wanaag fiican sameysay rajadii soo celisay aniga halkan joogo aan ka dareemay rajadii soo celisay aan ka dareemay bulshada Soomaaliyeed oo meel walba joogto waxa ay maanta reaction ka bixinayaan wanaag ay
muujinayaan aan ka dareemayo dadka wadankii jooga oo nula xiriirna maalin walba la hadalno wanaaga ay muujinayaan marka rajada Soomaaliyeed yaan been laga sheegin yaan dadkeenan qurbaha jooga ummadaas bariiska carreeyaan uga shubin inaan 10 sano dib u celinin hore ha loo socdo intaasay ka hadlaysaa haysto waayahay su'aasha kale qabaa waxay tahay bariyahan ma moodaa dambe in fankii iyo siyaasadii ay isdhex galeen marka laga yimaado heestan heeso kale oo badan baa jira oo soo baxay oo loogu jawaabayo ama wax laga sheegayo hogaamiyaasha iyo madaxda fanka iyo siyaasaddu ma u malaynaysaa adiga dalmar ahaan inay haatan ay yihiin wax isdhex galay fanku horta siyaasad kuma base garaysan laakiin wuxuu ku base garaysan yahay dareenka bulshada hadduu kacsan yahay oo arrin siyaasadeed oo khaasatan oo markaa jirta ay dareenka bulshada u hanqal taagayo fanku wuu ka hadli karaa laakiin wuxuu leeyahay marxalad loo maro dariiqo loo maro oo akhlaaq leh oo adaab leh oo wadaniyad leh adigoo nacsiinaynin dadka wadanka ay ku nool yihiin inaad tusto u iftiimiso adigoo maldahaya oo wada adaab leh oo akhlaaq la maraya inaad tusto meeshay wax ka qaldan yihiin haddii waayaa cusub walaalkay saaxiibkay shiine wadada uu mari lahaa I would love to waana ku taageeri lahaa laakiin wada oo aan u arko anigu in ay shakhsi u daneynayso ama shakhsi kale uu ka dambeeyo ama isagu nafsad ahaantiisu uu macnaha uu dan gooni ka wato macnaha waa foolxumo weeyaan laakiin haddaad adigu aad daldalool aragto aad tiraahdo maxaan ku raadaay meel heblaay wixii ka dhacay dawladdu maxay wax uga qaban weyday maxaa wax loo sameyn waayay adigu shacabkii beenu sheegeen shacabkii kicinayn shacabku waa indha ku garaad leh laakiin iyaga ka wax dantooda marka wanaagaas in la maro haddii ay jirto fanku siyaasadda waa laga hadli karaa totally waa laga hadli jiray hortana laga hadli jiray waayahay dalmar kooxda waayaha cusub waa koox aad u ballaaran oo in badan soo jirtay saanu ka warqabno haatan haddii saad ka dhawaajiseen aad khilaaf uu meesha soo galay oo aad u aragtaan shiine in uu awoodii kooxda uu ku tagrifalayo miyaanay qorshaha idinku jirin ama miyaanay habboonayn inaad kooxda badbaadisaan isagana aad gaar u xukuntaan maadaama haatan ay arrintu u eg tahayba in kooxdii waayaha cusub iyo shiinaba laysla tuurayo may waa sax way arrinta ka hadlayso waa qorshe noo qorshaysan ma ka bixitaanka aniga hadda aan leeyahay waan ka baxayaa kooxda ama waan ka baxay kooxdu waa waxaanay igu kooban laakiin waan kuu sheegay waana kaaga bilaabay ma aha go'aan aan qaadan karay keligay wuu noo socdaa shirar baan noo socda annagoo aanu darahana uga tashanayno waa la arki doonaa maalmaha soo socda waan ka wada hadli doonaa laakiin wax hadda degdeg oo leeyahay kooxdii waa burburinaynaa because of shakhsi ama shiina madaxiisa loo burburinaya ma jirto weli waayaad waa mahadsan tahay maxay tahay fariinta ugu dambaysa ee aad fari doonto ama aad u gudbinayso fanaaniinta iyo sidoo kaleba siyaasiyiinta arrintan isku haysta heesta kasakow heesta anu waxba kama oranayo dadku iyagu ha qiimaystaan laakiin dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan hal arrin baan u sheegayaa dawladnimo taageer shakhsi ha taageerin shakhsigu maanta wuu noo imanayaa berri wuu naga tegayaa mid kale noo imanaya laakiin waxa u baahan inaynu ilaashano waa dawladnimada hala taageero wabillahi tawfiiq aad baad mahadsan tahay waan ka mahadcelinaynaa adiga iyo asxaabta kale kula caawineysaba barnaamijkan aad naga aqbasheen tan iyo kulanti dambe haddii Allah uu wada ogolaado waxaan ku dhaafi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh